السلام عليكم. qaybtan waa qaybtii koowaad ee jawaab celinta degdega ah. waxaanu soo qaadanaa xigmado hore loo yiri si aan uga faa'iideysano xigmado iyo way aragnimo. nin baa ku yiri juxo maanta ku baan garanay dameerkaaga ayaan gartay. juxo wuxuu ugu jawaabay dameeruhu iyaga iskarta. mid kale waxay ahayd nin baa ku yiri halka marka soo socotay naag baan ku moodayay. isna wuxuu ugu jawaabay halka marka soo socotay nin baan ku moodayay, yani hadarna sanaag baa tahay. nin baa yimid tuulo wuxuu kareystay guri markaa gaboobay, dibadna soo gurigii ayaa soo daatay. ninkii guriga lahaa buu u kuulay oo gurigaagani saaxiib uu soo qubanayaa. ninkii baa kuulay ninkii u jawaabay war saaxiib gurigu wuu subxaanalaysanaya, mid maqal shay kasta inuu ilaahay u subxaanalaysto. ninkii wuxuu sameeyay garan waayay ilaa quraan baa hor yaalay. dabadna wuxuu yiri nin waxaan ka baqay hadaba inta khushuuc la dheeraato inuu igu dul sujuudo. nin baa lagu yiri hebelow sadataam ku roontahay ama ku wacan tahay. ninkii wuxuu sameeyay waa garan waayay waayo sidadii gurigiisa ay baabisay oo qori dabla kula wareegaysa. waxaanu ku jawaabay anigu naftii hafar la noqon maayo, sadadii cayna noqon maayo, yani labadiiba midna muu cayne liidku ka raacay. nin la oran jiray ashcab oo aad ugu daraa cuntada sidii la oran jiray ninkii cawd dhukaas ee Soomaalida ahaa. nimanbay maalin wada cunaan cunto dibna soo aad buu u boobay. waxay ku dhaheen war ashcab cuntada waxaad u cunaysaa sidii hooyadii ku horididay. wuxuu ugu jawaabay waa adigu maxaad ugu naxariisanaysaa sidii hooyadii ku naasnuujisay. shaacir carbeed oo indhalaa magaciisuna uu ahaa Bashaar ibn Burdi ayaa lagu yiri war Bashaar qofka haddii Ilaahay indhatiro ama uu meel ka qaado meel kale ugu bedelay adiga muxuu kugu bedelay. wuxuu ugu jawaabay wuxuu igu bedelay inaan noocaaga soo kala arkin. gabadh baa ku tiri ninkeedii indhala haddii aad arki lahayd quruxdeeda waad yaabi lahayd. isna wuxuu ugu jawaabay haddii aad qurux leedahay kuwa indhaa leh igamay kaa tageen. wassalaamu calaykum.